kulanti waxaan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay Soomaalida iyo caalamka aadaan oo kale shanta TV aad ka daawataan qodobada warkeennana waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyay safarka Xasan Sheekh Maxamuud iyo kulamo hor leh oo ka dhacay caawa Garowe haddaba kulamadaasi maxay yihiin wararkeenna ayaad kaga bogan doontaan madaxweyne Qoorqoor oo bilaabay qorshe uu muddo kororsi hal sano ah ku samaysanayo waa kuma dilaaga aan weli la xukumin ee loo diray inuu isagu dadka xukumo wararkeena ayaad kaga bogan doontaan iyo ehelada dirawalkii la dilay oo Muqdisho go'aan culus ku dhawaaqay qodobadaas iyo kuwa kale oo intaasi ka faahfaahsan ayaad warkeena ku maqli doontaan fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe saar gambaleelkana fura si aad ula socotid wararka iyo warbixinadan halkan soo gelino aynu ku bilowno wararkeena madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo habeenkii afraad u hooyanaya magaalada Garowe ee Puntland ayaa caawa kulamo la qaatay isimada iyo hoggaanka dhaqanka maamulka Puntland qoraal ka soo baxay xafiiska madaxtooyada ayaa lagu sheegay in kulankaasi uu ka dhacay magaalada Garowe ee dowlad goboleedka Puntland isla markaana uu ahaa kulan la tashi ah madaxweynaha oo kulanka uu ku weheliyo wasiirka arrimaha dibadda Abshir Cumar Huruse ayaa isimada iyo waxgaradka Puntland waxa uu ka dhageystay talada iyo doorkooda horumarineed ee ku aadan adkeynta dowladnimada iyo midnimada shacabka Soomaaliyeed ayaa lagu yidhi qoraal ka soo baxay kulankan ayaa imanaya iyadoo ay soo gabagaboobeen kulamadii madaxweynuhu uu maalmahan kada Garowe kula qaatay madaxda Puntland kuwaasi oo isfaham laga gaadhay sida ay xalay shaaciyeen labada dhinac madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo maanta kormeeray dhowr xarumood ayaa warbixino ka dhageystay hay'adaha iyo wakaaladaha horumarineed ee biyaha wadooyinka iyo maareynta kheyraadka maamulka bangiga dhexe iyo guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka Puntland barigelinka hore ayaa la sheegayaa in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu dib ugu soo laaban doono magaalada Muqdisho safarka oo markii hore loo qorsheeyay 2 maalmood ayaa gaadhay 4 maalmood dhanka kale madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdikaariye Qoorqoor ayaa bilaabay qorshe uu muddo kororsi hal sano ah ku samaysanayo sida aan ogaanay madaxweyne Axmed Cabdikaariye Qoorqoor ayaa guddoomiyaha baarlamaanka maamulka Galmudug ku cadaadinaya inay qabtaan mooshin ay ka diyaariyeen qaar ka mid ah xildhibaanada maamulkaasi si wax looga bedelo dastuurka maamulkaas Qoorqoor iyo xildhibaanada ku dhowdhow ayaa doonaya in meesha laga saaro qodobka dhigaya in muddada xilhaynta maamulka Galmudug uu yahay 4 sano isla markaana qodobkaasi lagu bedelo in muddada xilhaynta ay noqoto 5 sano baarlamaanka maamulka Galmudug ayaa la filayaa inay yeeshaan kulan gaar ah si ay uga doodaan wax ka beddelka la rabo in loogu sameeyo madaxweynaha iyo baarlamaanka muddo 1 sano ah sida la fahansan yahay Qoorqoor ayaa qorshahan kaga dayanaya maamulada Koonfur Galbeed iyo Jubbaland oo iyaga dhankooda samaystay muddo kororsi 1 sano ah kadib markii ay wax ka beddel ku sameeyeen dastuurka u yaala maamuladaasi dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa la rumaysan yahay inayna ku qanacsanayn muddo kororsiga ay samaysanayaan madaxda maamul goboleedyada waxaana indhaha lagu hayaa sida ay dowladdu u wajihi doonto arrintan dhanka kale boqolaal shacab ayaa xidhay qaybo ka mid ah wadooyinka isku xidha kilomitir 4 iyo dugsiga 21 Oktoobar ee magaalada Muqdisho dadkan kama cabanayaan shaqo la'aan sicir barar ama burbur wado balse waxay ka cabanayeen dilka darawal waday gaadiidka xamuulka ah u toogtay askari ka tirsan ciidamada dowladda ee jooga agagaarka hotel Naasa Habloodkow kaabiga ku haysa isgoyska kilomitir 4 ninka dilka geystay waa askari booliis ah lacag cadadeedu ay hooseyso oo $2 lagu sheegay taasoo askarigu dalbaday ayaa dilkan sabab u ah sida ay ku waramayaan dadkii goobta ka agdhowaa askariga dilka geystay ayaa la soo wariyey inuu baxsaday darawallada iyo mulkiilayaasha gaadiidka alaabta ka soo qaada dekedda magaalada Muqdisho ee u sii qaybiya qaybaha kale ee magaalada ayaa dhowr jeer cabasho ka muujiyey ciidamada dowladda ee jooga wadooyinka caasimadda kuwaasi oo isugu dara dhac iyo dil muddooyinkii u dambeeyey dhaqankan taxane ayuu soo ahaa in $dhowr loo dilo qof u halgamaya nolol maalmeedkiisa
waxay muujinaysaa sida ay bini'aadanimadu uga sii guurayso caasimadda. Markii uu dilaagu uu yahay midkii loo doortay inuu ku ilaaliyo way ka sii xanuun badan tahay. Dad badan waxay isweydiinayaan waxa kordhiyey dilalka ay ciidamada dowladdu u geysanayaan shacabka caasimadda. Waxaana jira hal arrin oo aan weli la xusin, waana dilaaga aan weli la xukumin oo loo diro inuu dad xukumo. Askar badan oo gacan ku dhiiglayaal ah oo dad dilay kadibna baxsaday. Halkii cadaaladda laga horgeyn lahaa ayaa iyaga dib loogu igmadaa inay iyagu sugaan amniga shacabka iyo waddooyinka caasimadda. Maamaha xun ayaa ah nin hal dilay hal uma daaho, ayay askarta Muqdisho waafajiyeen afka hore ee qorigooda. Inta ay waddooyinka caasimadda taagan yihiin askar dilal hore soo geystay oo cadaaladda ka baxsaday, way adag tahay in dilalka joogtada ah maaro loo helo, ayay leeyihiin dadka shacabka ee magaalada Muqdisho. Dowladda cusub ee Xasan Sheekh Maxamuud waxaa laga sugayaa sida ay u beddesho wejiga ciidamada ilaaliya waddooyinka magaalada Muqdisho iyo xaafadaha, iyadoo muddooyinkii dambe ay magaalada Muqdisho amnigeedu faraha ka sii baxayay. Haddaba inta aan dilaaga aan la xukumin uu isagu wax xukumayo, xaalku waa uu adkaan doonaa, ayay leeyihiin dadka shacabkii. Dhanka kale, ehelada marxuum Maxamed Axmed Borow oo shalay toole askari ka tirsan ciidamada dowladda uu ku dilay magaalada Muqdisho ayaa sheegay inayna meydka aasi doonin ilaa iyo intay dowladdu cadaaladda soo taagayso askariga dilay wiilkooda. Maxamed Axmed Borow oo darawal ka ahaa gaadhi xamuul ah oo kuwa dekedda Muqdisho shixnadaha ka qaada ka mid ahaa, ayaa shalay toole loo dilay $2 oo baad ah, sida ay caddeeyeen dad goobjoog u ahaa dhacdadaasi. Sahre Axmed Ibraahim oo ah gabadhii u dhaxday marxuumka ayaa iyadoo ilmeynaysa waxay ka sheekaysay siday u taabatay geerida saygeed oo ku noqotay mid xanuun badan. Cadaalad ma haysano, ninkii dilay ilmahayga aabbaho dowladda ayuu ka tirsan yahay, mana soo qabanin. Ilaahay iyo dowladdaba waxaan ka baryayaa ninkii ilmahayga agoonta ka dhigay in cadaaladda la soo taago. Waxaa xanuun igu haysa qof aan hadda quraac siiyey oo markii uu iga tegay la ii soo sheegay meydkiisa. $2 iyo wax la mid ah ayaa loo dilay. Ninkii dilayna magaalada ayuu baashaalayaa, ayay tidhi Sahro. Aabbo Borow oo ah aabbaha wiilka la dilay ayaa warbaahinta u sheegay in wiilkiisa oo korsanaya 6 carruur ah uu askari ka tirsan dowladda si bareer ah u toogtay, isaga oona cod dheer ku dalbaday cadaalad. Burbur, dowlad la'aan iyo shaqo la'aan ayaan wiilkayga ku soo koriyey. Haddana 6 carruur ah ayuu haystay, maantana ilmihiisii xataa waa la dhaafiyey, ayuu yidhi aabbaha wiilka dhalay. Wuxuu intaasi ku sii daray, wiilkayga ninkii dilay cid soo qabatay ma jirto. Hadda qabiil ma jiro oo dowlad Soomaaliyeed ayaa dalka u dhisan, waxaana laga rabaa in dadka wax magaratada ah ummadda ay ka badbaadiso. Haddii cadaalad dowladda laga waayo, waxaa dhici doonta in la iska argoosto. Wuxuu aabbahani carrabka ku adkeeyey in meydka wiilkiisa aan la aasi doonin ilaa intay dowladdu cadaaladda hor keenayso askariga dilay wiilkiisa, isagoo oo sheegay in faranjeerka uu ku jiro meydka habeenkii labaad. Qodobkaas ayaa warkeena ugu dambeeyey. Sidaas iyo nabadgelyo.